ciidamada dib u xiraynta deegaanka qaybtooda Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta howlgal qorsheysan ka fuliyay tuulooyin ku xiran deegaanka Yaaq Beledweyne waxaana howlgalka hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenkii hore arrimaha bulshada iyo taliyaha ciidanka daraawiishta degmada. Howlgalka ayaa si gaar ah ciidamadu waxa ay kaga fuliyeen tuulooyinka Dabridka, Moorgalaale, Dhilmaanyooley oo gambaad u ahaa khawaarijta kuwaas oo galbeedka ka xiga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. ugu horreyn waxaa kelmado kooban oo howlgalka ku saabsan jeediyay taliyaha ciidanka daraawiishta degmada Nurjoon. geeki hor wali ay tay inay uu meel u roon leeyahay difaaca galno iyo leef firaanka suwaani hatta markuu uni weerar saasartee wali iska way giliyaanana inay uu dagaal injeenan oo diyaar garowaynan meel alla meel khawaarij kala joogto mana angasada lutaran kasadan madakala askara etiin ميهني قبيل ميهني منا رهيبل دقمد واللوين يوجد عن كوفر قبل دقن ولين عتا اسكمت يعني عتا لانكي أذو كانوا لانكي شعب أذو كان هاينا شعب كانوا محمد حاجي مختار قعمة ديره قدومي ku-xigeenkii hore arrimaha bulshada degmada Walaweyn ayaa xusay in tuulooyinkan maanta ciidanka gaareen ay ahaayeen kuwo argagixisadu ay ku dhibaateyn jireen shacabka. Rabna maanta laga bilaabo ciidankan oo dib u xiraynta ka shaqeynaya ciidamada daraawiishta degmada Walaweyn iyo gobolkan Shabeellaha Hoose inay wada shaqeeyaan. ciidanka meeshan taagan iyo kuwa had naga maqan waxaa la rabaa inay maanta laga bilaabo sidii dalka dhan ugu socdo madaxweynaha jamhuuriyadda hore ugu dhawaaqay oo xirayntan dalka maanta ay meel kasta ka socoto. cadowgan Soomaaliya haysto oo meel kasta maanta dadku dhibaateeyay oo baari laga falan waayay xoolihii maxay laga dhaqan waayay noloshii bini'aadamka dadku u diiday in maanta dagaalkiisa si dhab ah loo galo loona waajaho. mid kale waxaan u maleynayaa dagaalkan maanta wuxuu maraa wajigiisa labaad oo koonfur galbeed maanta loogu dhawaaqay maalmahan buu socday abaabulka meel kasta ka socdo gobolka Shabeellaha Hoose oo kamid yahay koonfur galbeed dagaalkan ay maanta si wada jir ah ee loo gali doono si gaar ahaan maadaama anagu Ilaahay namakaniyo gobolkan Shabeellaha Hoose waxaan rabaa hal fariin in aan u diro guud ahaan gobolka degmooyinkiisa kale degmada Walaweyn waxaan u maleynayaa in ay degmada Qoryooley iyo Afgooy iyo Buur-Hakaba Walaburd Jowhar Tiiglo intaas degmo Walaweyn ay xuduud leedahay oo maanta qoriga awoodtay cadowga awoodtay dad shacab ah ku dhibaataysid mas'uuliyadda waxaa qaaday qofka qorigaas wata dhibaatadiisa qaadanaya. waxaan u digaynaa askarta meel kasta ay joogaan howlgalka markii lagu jiro in dadka shacabka loo dhimriyo qof kasta oo nimankan shabaabka ama u shaqeynaya ama ayaga la jirana isku si maxay raada ay loola dagaalamo haddii la raali kana waa laga guuleysanaa waddankaana waa xorooba shak kuma jiro howlgalkaana soo u bilowday waay koonfur galbeedna maxay raada waa ka bilowday waxaan rabnaa inaan toos meel kasta ay joogaan inaan ugu tagno god kasta ay galaan aan la galno naftaana maalinta Ilaahay ugu talgalay ba'aysa ay dhimanaysa Ilaahay idinkiisa waana guuleysanayna anagaan xaq ku taagan baaq u sii dira madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha koonfur galbeed taliyaha xoogga dalka wasiirka amniga koonfur galbeed cid kasta oo khusaysa oo arrimahan horey u ballan qaadeen in ciidamada laga soo warqabo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose cid iyo maamulka degmada Walaweyn inay maxay raada ay ciidankan garab istaagaan haddii ahaan lahayd saanadii iyo hungurigoodii iyo wax kasta ay u baahan yihiin idinkan waxa idin ka rabaa inay u diyaar garowdaan naftiina inaad u shubtaan inaad dad kale gadaashin ay noolaadaan. maalmihii ugu dambeeyay waxaa gobolka Shabeellaha Hoose si dardar leh kaga soconaya howlgallo qorsheysan oo lagu beegsanayo kooxahan waqtigooda uu sii dhamaaday ee khawaarijta iyadoo ay inta badan howlgalladu fulinayaan ciidamada dib u xiraynta gobolka Shabeellaha Hoose oo garab ka helaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Aways Moomin Xasan Aways warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose.